الله وبركاته كلامتي وعنا وناكسن داوديال إدil baamel waliba wad joogtaan kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya Ambassador Maxamed Ali Americo waxa uu waraysigan ku saabsanaan doonaa safar dhawaan safiirka uu ku tagay xerada Kakuma oo ka taala dalka Kenya oo ay ku jiraan dad badan oo qaxooti ah Soomaaliya sidoo kale waxaanu ka waraysan doonaa halka ay marayso taakulayn la doonayay in dadka qaxootiga loo ururiyo ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi oo safiirka in badan la hadlayay sidoo kale waxa waraysiga ka qayb noqonaya safarro dhawaan safarada Soomaalida la filayo iyo waliba hay'ado kale oo caalami ah inay ku tagaan xerooyinka kale ee qaxootiga marka hore Ambassador waxaad ku soo dhawaataa Somali American Media Association Summit TV su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay marka hore waxaad inoogu warbixisaa safarkaagii Kakuma waxyaabihii ku saabsanaa بسم الله الرحمن الرحيم أول ما سنت هاي وأنا سلواني يا سلوان سفارة سوماليا نيروبي كينيا سفر كي أنا كنت لكاكوما هنا كنت لكاكوما هو سفر يا ما أنا كوشيني واحد جيران على السفر بدن ونوي بتكسر على كوتيجا يقول جري حلاقة كوتيجا كاكوما واحد على إن بلون سود أفريق جد سوماليا وجود لي هكاس وجود بيقول لي راه markuu u diray xiriirka qaxootiga kaas oo aad ay u cabanayeen xagga nabadgelyo xumada iyo raashin xumo ay ka cabanayeen waan gartay safarkii magaalada Nairobi aad kaga baxday oo Kakuma aad ku gaartay yaa ku heliyay hadii ay tahay hay'ado caalami ah ama madax kale oo dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ka tirsan waxay weliyay madaxda ka tirsan hay'adda qaxootiga UNHCR-ka u qaabilsan qaxootiga ayaa saaray waan ka koobaynaa waan gartay markii aad tagtay Kakuma maxay indhahaagu ay qabteen oo aad aragtay markaan ka tagnay diyaaradii Kakuma waxaan airportka lagu soo dhaweeyay dad guddi ay iska bixiyeen dadka Soomaalida qaxootiga kuwaasoo meesha la taagnaa calanka Soomaaliyeed oo ilaaliyeen oo markaan soo tagnay oo aniga aad iyo aad ugu farxay dadkii la socday ajnabiga ahna ay aad ula yaabeen iyagoo aad iyo aad ii soo dhaweeyay oo aad u farxsanaa inay arkaan waan gartay waxay ugu maqaalaa heesta calanka Soomaalida in lagu qaaday arrinta ka waran heesta calanka waa la qaaday waxay nagelis ku leeyahay majriraco waxayna muujiyeen inay weli wadanimada iyo mataqaana ay ku jirto markii heesta calanka la qaaday adigoo ku sugan Kakuma Street malaha magaalada Muqdisho ayaa joogtaa aad iyo aad baan u farxay dadkii la socday oo UN ka socday ayagana waxay la yaabeen mataqaana soo dhawaynta fiican iyo dadku aad u maxariisana إلى هذه المنطقة دتك أد بيكوسوا دوانيا أنا وحقول هذه دتك جواي أنا وحنقول تحسي منطقة إلى هيد إلى المرة أترو لكن أول قاعد إن شاء الله تعالى إلى بدن دون البوشة وانقرتي إلا يميقات كنا الصومالية يكجر يا سلالة حرادس وحليش شيء حدا الدقيق يكجران دت قارة يزيد نشان كون وحطيها كنتم كون كمدان الصوماليين وانقرتي مديش تاو حكومة جوني أو هذا قاعدتي gudida hadii ay leeyihiin oo kale qaxootiga markii aan error ka tagay waxaan koobi aan tagay oo la kulmay DC-ga Kakuma oo aan asna meesha ku arkay oo asna sifaaci soo dhaweeyay oo yiri in mataqaana timaadu waa muhiim bay anoo ka hadlay in mataqaana asna ii sheegay dhibaatooyinka xagga amniga jiro oo asna ii balan qaaday in aniga asaga aan ka wada shaqo doono sidii arrimaha wax ka mid ah bal waxaad inoogu warantaa mudane dhanka nolosha haddii ay tahay biyaha iyo waliba caafimaadka kale cuntadu siday ahayd inta aad ka warqabto markaan ka tagay DC-ga xabiiskiisa waxaa way kaxayeen guddigii waxaana soo booqanay xiriya qeybo kala duwan oo ku taala xeelad qaxootiga Kakuma oo aan la kulmay dad fara badan oo kala duwan dadkii aan la kulmay markii aan warbixin soo koobo waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin fara badan ay ka haysto xagga nabadgelyo xumada xagga raashinka xagga mataqaana carruurtooda oo aan iskuul aan lahayn iyo dhalinyarada oo iyaga ka caawinaya iskuulaan waxaa meesha ku arkay dhalinyaro mataqaana indhahayga saarabo qaarkood oo qaad cunaya oo mataqaana waxyaabo kale soo isticmaalaya oo markii aan wareystay waalidiintooda ay ii sheegeen in maadaama aan lahayn wax la qabta aan lahayn waxyaabahaas maalinjoogaha iyo daroogada ay isticmaalayeen waxaan kaloo arkay waxaa kaloo joogeen dad cilyaamiin ah oo iyagana ka cabanayeen inaan haysanin tasiiraad iyo mataqaana gaariyaan iyo waxa ku socdaan oo dhibaato xaggaas kale ay ka kulmeen
waan gartay waxaa jira dhibaatooyin soo laablaabta oo loo geysta dadka qaxootiga haba ugu badnaatay xagga dilalka arrintaasi ma kala hadashay hay-adaha ammaanka ee ku sugan deegaanadaasi weliba UNHCR way sheegeen waxyaabaha ka cabteen ugu weyn waxa way xagga amni xumada way sheegeen in dad degan mataqaanaa xaafadaas ama magaaladaas Kakuma oo reer Kenya inay dhibaato ka haysto oo iyaga dadka dilayeen habeenkii mataqaanaa ay wax ka dhacayeen arrinta waa kala DC-ga waxaan u ballan qaaday hadda markaa kusoo abto Nairobi saakeeto ayaan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya anoo marayo aan kala hadlay oo aan weydiiyey in arrintaas wax laga qabto anaga saad ogtahay dowladda Kenya dadkeedaba waxay ahayd dadka u horreeyey oo markii dagaalka dhacay soo dhaweeyey intaan la furin xeryaha qaxootigana dadka Kenyaatiga ee deegaanka Kenya iyo Soomaaliya intaan loo furay la soo dhaweeyey marka anagu uma hadcelinayno laakiin haddeertaana waxaan ka codsanay in dadka masaakiinta ah waa hadda soo qolqolaya amniga dhowro waxaana ka codsaday in aan rabo in maalmaha loo socdo ama bisha inta dhawaan ka hor aan ku laabto Kakuma la ii balamiyo odayaasha Kenyaatiga ah oo dadka meesha degan iyo kuwa Soomaalida aan isu geeyo kadibna arrintiisa sulaxa nabada ugu dhameeyo waan gartay safaaraddan Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Nairobi oo adiga ambassador ka tahay waa safaaradaha ugu shaqada badan bal dhanka qaxootiga waxyaabaha idin xiga oo aad qorsheynaysaan waa maxay mudane Kenya waxa way saasheegto way wada shaqada baa qabnaa Kenya waxaa degan dad fara badan oo qaxootiga xiriirka qaxootiga ee Dadaab waxaa degan dad ka badan 600 oo kun oo qofood ee Soomaali badan yihiin waxaa lagu sheegay in xiriirka qaxootiga adduunka ugu weyn ama ugu dadka badan Kenya waxaa degan dad Soomaaliyeed oo fara badan arday ah waxaa degan ganacsato Nairobi waa meesha ay degan yihiin hay'adaha UN-ka ee Soomaaliya u qaabilsan ama meesha ay degan yihiin safaaradaha Soomaaliya u qaabilsan marka halka waa meel aad iyo aad muhiim u ah annagana safaaradahan waxaa waaye waxaan xoog saarnaa in dadka Soomaaliyeed dhibkooda aan wax ka qabano markii halkaan safaarada la furay waxyaaba ugu wanaag qaban waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed waagi hore qafaala jiray la xiri jiray aan wax ka qabano ma dhahayno boqolkiiba boqol wixii way istaageen waxaan misanahay inay sidoo hore dhamaan waxaan ka shaqeynaynaa inaan wadno ilaa ay arrintaas ka istaagto waan gartay marka laga tago inaad ku laabanayso xerada Kakuma oo qaxooti badan oo Soomaali ay degan yihiin kol harna aad tagtay ma jirtaa qorshe kale oo aad qorsheynayso amaba laga yaabo safaro inaad ku baxdo adigoo gaaraya xerooyinka kale ee qaxootiga sida Dadaab oo kale hadda waxay qorshe insha Allah taala in week kadib aan tago xerada qaxootiga ee Dadaab markaasoo iyadana aan rabo inaan soo xuraansado aad ka soo dhigeyso dhibka qabaan waxaan kaloo insha Allah geyn doonaa buugaag iyo qalmaan aan aruuriyey oo aan mataqaana usoo iibiyey hadda kahor markaan tagay halkaan tagay waxaan soo arkay in iskuulaad ay furan yihiin laakiin iskuulaadka ay aad dhibaato ka haysto xagga buugaagta iyo qalmaanta hadda wax badan maaha laakiin waa in yar insha Allah tacaala kuwaas aan geeyaa rabaa markaan soo laabto waxay ii qorsaysan arrintii ahayd oo ayaamahan aan waday oo fundraiserka ahayd ama yabaha ahayd oo aan rabo in la dadargeliyo waxaan rabnaa inaan guddi sameyno anaga safaarad ahaan wixii waa sameynay laakiin waxaan maamulkeeda iyo lacagta iyo iibinta inaan guddi u sameyno guddigaas oo ka koobnaan doono ganacsato iyo haween iyo cumaadiin waan rabnaa iyaga inay maamulaan waan gartay horeytuna waad inoogu sheegtay kulamo ayaad la qaadanaysay ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi ee Soomaalida ah bal marka laga tago wada hadal ma jirtaa dhaqaalo ay ballan qaadeen inay ku kaabayaan qaxootiga Soomaalida ay ku dhibaataysan daafaha dalkan Kenya ee ka soo cararay dalka ay dagaalada sokeeye halkeeyeen ee Soomaaliya way ballan qaadeen markii aan bilaabay arrintan oo fundraiserka waxaan ka helay mataqaana ballan qaadi fara badan ganacsatada halkaan degan Nairobi Mombasa dad fara badan Soomaaliya oo jooga London iyo Europe iyo America iyo Canada oo iyagana soo dhaweeyay arrinta laakiin waxaan rabnaa anaga inaan ku degno waxaan inaan sameyno hab maamul ah oo aan control furo dad guddi aan sameyno iyaga ay maamulaan kadib meesha aan ka wadno marka waxaan rabnaa in ay noqoto wax joogto ah noqoto wax horumar man gartay ma jirtaa dad dibadaha ku sugan haddii ay joogaan Mareykanka Canada Europe amaba Africa xitaa Soomaaliya dad ganacsato oo doonaya barnaamijkaasi inay ka qayb qaataan oo ka safaarad ahaan idinla soo xiriiray way jiraan wana soo waceen marka hadda waxaan niri mataqaana ilaa aan ka sameynayno koontadii iyo maamulkii marabna mataqaana wixii ay hadhowda anaga nolo eedeeyo in wixii aan lacagta dhaceen waxaa siyo marka ilaa aan ka sameynayno insha Allah tacaala waxaan rabnaa inaan ismaan gudaheeda aan ku sameyno waan soo sheegi doonaa website-yada iyo TV-da oo soo sheegana insha Allah shacab badan oo Soomaaliya ayaa fursad u heli doona inay daawadaan Sama TV
bal mudane maxaad u jeedinaysaa ugu dambeyn oo ku saabsan dhanka qaxootiga Soomaalida oo aad doonaysaan ama dadaalada aad ugu jirtaan in la gargaaro waxaan u baaqi lahaa ka faa'iideysanayo Soma TV dad waxaan Soomaaliya nahay anaga waxaan u leenahay do iyo dhaqan waxaan nahay dad muslim ah diinta ayaan faraysa in aan dadka walaalahan aan gacan siino aan is caawino anaga 2 sano ka hor saaro kale ayaa sameeyay fundraising oo lacag la aruuriyay lacagta raashin ayaan ku iibinay dadka ka ogeynay qaxootiga hadda waxay ahayd dowli waa u sheegnay marka hore waxay filayeen in raashinka ay u maleynayeen inay yihiin raashinka laga keeno UN-ka ama WFP markaan waxaas ka soo lacag Soomaaliya aad bay noo soo dhaweeyeen ay ku shuuceen marka waxaan ka codsan lahaa oo aan dadka Soomaalida dhageysanaya ama daawanaya oo degan waddanka dibadiisa in ay soo fiiriyaan walaalahooda meelaha degan yahay Mareykan iyo Canada iyo waxaan ogahay in halkii mar dacwo coffee and TV oo $5 $6 lagu iibsanayo marka haddii hal maal iska dhaafo coffee waxaan aaminsanahay in dadkaas ay wax u tiraasho iyagana ay ajir ka helayaan waan gartay waad mahadsan tahay waa hagaaga dhegeystayaal guud ahaanna inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waraysiga aanu la yeelanayna safiirka Soomaalida u fadhiya dalkan Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur America oo inoogu warramayay gudaha safaaradda xafiiska uu ku leeyahay tan inta aynu ku kulmi doono waraysidan oo kale waa saaxiibkii Maxamed Cusmaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saaxiibkii Cabdifataax Jayte oo isaguna dabcan dhanka kaamirada inoo fadhiyay safiirka aad u mahadsan yahay mudane aad